بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan ka cambaaraynaa dilkii loo geystay xildhibaanka golaha deegaanka ee ka tirsan degmada Berbera waxaan leenahay waan cambaaraynaa sida falka xun ee loola kacay xildhibaanadii la soo doortay waxaan leenahay hadii xildhibaanadii la soo doortay la leynayo askartuna wasiiradana halayaan halkaan bay maraysaa waxayna ku socotaa in uu xildhibaanku isku daafaco hadeeta wixii uu qorayo maada ay ku socoto in xildhibaanadii golaha deegaanka ee la soo doortay maanta loo geysanayo dilka bareerka miidiyahana marka dambe la horkeenayo waxaan leeyahay arrinkaas waan cambaaraynaa xukuumaddu ha ka bixiso raali gelin ilaa waxaan suganaa jawaab inay ka bixiso xukuumaddu waanan ka suganaa arrinka waxaanan aad baanan uga xunnahay dhammaan degmooyinka gobolka Awdal oo dhan waxaan kale ku darayaa xildhibaanadii golaha wakiilada ee noo yimiday ee marayay degmooyinka gobolka Awdal way ku mahadsan yihiin xildhibaan ka jawaabayna waxaan leeyahay sidiidaada mooyaan dhul dhacaga waruma hayso arrinkaas wuxuu ahaa mid degmooyinka oo dhan ku saabsan ma aha mid degmada gobolka Awdal oo kaliya ta u gaar ahayn wax buuq oo ka dhacayna ma jirin waxaan leeyahay xildhibaankaasi uu ku degdegay hadalka waan ka raali gelinaynaa xildhibaanada golaha wakiilada hawsha ay gudanayeen ee shaqadooda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waxaan cambaarayn maanta halkan uga soo jeedinayaa wasiirka arrimaha gudaha iyo ciidankii watay ee militariga ahaa ee uu sameeyay ee dilka bareerka kula kaceen xildhibaan ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Berbera taasoo ah wax aad u fool xun waxaad moodaa maalmahan maamulka xisbiga kulmiye xukuumadda maanta haya in xukuumaddii uu god u qodaayo hoosna uu sii wado waxaad arkaysaa dilka foosha xun leh ee loo geystay xildhibaanka ka mid xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Berbera taasina waxay ku tusaysaa xildhibaanku waxa uu leeyahay sharaf buu leeyahay karaama buu leeyahay inta iyo dad baa soo doortay xukuumaddu waxay maanta luminaysaa jaaniskii bulshadii soo dooratay xildhibaanada ayaa luminaysaa aadna ugu cambaaraynaya waxa kale mar labaad ku cambaaraynaya xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland maanta madaxdeeda xarigan ay kula kaceen qaar kamida taageerayaasha xisbiga wadani ay xidheen aad baan iyadan ugu cambaaraynaya iyadoo aad moodo cid kasto maanta ka hor yimaado xukuumadda ama qof kasto ka baxa xisbiga kulmiye inay maanta loogu hanjabaayo oo leeyahay haddaad macna xisbiga kulmiye aad ka baxdaan haddaad saluugtaan xarig ayaad mutaysanaysaan taas waa tusaale cad oo maanta xukuumadda Soomaaliland maanta ay ku kacday aadna waan u cambaaraynaya waxa kale oo ku cambaaraynaya xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland maanta oo cambaaraynayaan ugu soo jeedinaya waxyaabaha ay kula kacday xarigan ay kula kacday saxaafadda waxaad moodaa markii hore xisbiga kulmiye waxa mucaaradka aad wuxuu ugu dhaliili jiray xisbigii udub wuxuu ugu dhaliili jiray xukuumaddii daahriyaale wuxuu ku dhaliili jiray saxaafadda ay caburinaysaa maanta waxa tusaale cad noqotay in macna xukuumaddii maanta kulmiye hogaaminayay ay noqoto mid kula kacday saxaafadii caburin wasiirkana waxaan u dilayaa waxaan leeyahay halkaad ka leedahay waxaan samaysanayaa macnaha guddi aan shaxmarinaan sameeyay halkaad ka leedahay waxaan u aaminsanahay inaad furanayso maanta kaamaan lagu qalaayo saxaafadda waa kaamaan baan leeyahay lagu qalaayo saxaafadda aad baan uga soo horjeednaa haddii guddi la dhisaayana waxaa la dhisi doonaa guddi aad gacantaada ku samaysa la dhisi maaye guddi dhexdhexaada la dhisi doonaa guddi dhammaan ay ka mid tahay xukuumadda Soomaaliland ay ku jiraan saxaafadooda dhan baa la dhisi doonaa taas waxa leeyahay cukuse macna adigu intaanad bulshada wax u sheegan horta adigu isku fiirsan leeyahay hadalkaaga adigu isku fiirso hadalkaaga adigu qor hadalkaaga adigu isdhageysan leeyahay cukuse waxa leeyahay oo aad u tilmaamaya maanta hadalkan uu tilmaamayo saxaafadda isagoo cabirin ku socdaan hadana leeyahay la soo mariyo taas waa wax saxaafadda iyo madaxbanaanideeda aad uga soo horjeeda hadday ku sinaanaan waayaan TV-yada macnaha TV-ga qaranka iyo TV-yada kale ee bulshada u shaqeynaya hadday ku sinaan waayaan waa cadaalad darro waxa leeyahay ku sinaadaan shaqaalaha oo saxaafadda dhammaan iyo kuwan aad aan mas'uul ka tahay TV-ga waxa kale ku tilmaami kala adiga iyo agaasimahaagu inaadan warba isku haynin markaad ka adkaataan lahayd agaasimahaaga ama aad ka adkaato shaqaalahaaga ayaad u gudbi kartaa shaqaale kale ama saxaafad kale aad gudbi karto waxa kale oo aad maanta cambaareen xoog u soo jeedinaya xisbiga kulmiye talaabada qaladka saan hore u sheegay ku qaaday taageerayaashii ka soo go'ay xisbiga kulmiye ee ku soo biiray xisbiga kulmiye ee xisbiga wadani ku soo biiray waxa la xarigaad kula kacday waa fool xumo waa waxaanan hore uga dhicin waa wax ugub ku amaanta jamhuuriyadda iyo jiritaanka Soomaaliland aadna waan u cambaaraynaya dhammaan waxa kale oo idnaalka maanta hambaliyaan uga dirayaa
golaha baarlamaanka xildhibaanada ka mid ahaa noogu soo booqday degmada Boorama iyagoo xog raadin ahaa iyo xog waraysi xaqiiqdan ay heleen ila badan iyo waxyaabo badan oo dalkeena maanta ka jira ay heleen taana iyagana hambaliyaan u diray waxaan leeyahay ku mahadsantiin booqashadaad soo booqateen waanad ku ammaanantiin inagoo aqoonyo horeysay maanta timaada iyagoo raadinaya xaqiiq raadis ah bulshada iyo degmada waxa ka jirana iyagoo raadinaya aad baad ugu mahadsantiin waxaan leeyahay mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baan ugu soo noqdaa hawshiina